بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت داوانيسا أما دب أو أما قل كرام هذا إلى شوك تبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي. مركورة وحن ربائنا ما أنت قبل نوت هاي ما أنت بركة سنة عرفات إلى القرآن كوشيا أعماشي يدلكي لصوق على إلهي إنه الله أقبله وميسانك حسنات كان الله قدره لا إلهي كبريا نقول الدم بدافع دمان المسلمين تأردن لبك هايستان إلهي كقال أنت مركان إلى هذا بري أو عيدة إن وهم بليايو دمان أمضى مسلمين تا قارهان سومالي دا إلى هذا عيد مبارك عيد إلهي نود iyo barwaaqaha nagu gaarsiiyo hana suuqay dambi dhaafo waxaan rabaa inaan intaas sii raaciyo oo hambaliyeeyo hawlihii qurxoonaa ee aad iyo aad loogu diirsaday ee ka dhacay Dhuusamareeb waa Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 dadkii ka qayb qaatay hawlaha filintooda intii u dhabar adeegtay soo dhaweynta iyo martigelinta dadkii ka soo qayb galay maamul iyo iskugu jiray bulshada mahadnaqaas gogasha dadkii dhigay madaxweynaha galmudug ugu horeeyo iyo maamulkiisa ciidamadii nabadgelyada noocyada badan lahaa iyo dadweynihii oo dhan la qaybsanaya mahadnaqii hore loogu mahad celiyay madaxda ama madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ayaguna ka soo qayb galo fududeeyay amaanta iyo mahadaas kadib Dhuusamareeb 2 ballan baa lagu soo galay dadkuna aad ugu farxeen reejeen weyna dadka ku dhalisay runtii dadaalka halkaas markay madaxdu iskugu tagtay ahayd in 15 dib la iskugu soo laabto guddi farsamana la sameeyo waxa ay ugu maqaalaa in dawlad goboleedyada qaar ay bilaabeen guddiyadii farsamada inay magacaabaan oo ay welina aysan dhamaystirmin dawlad goboleedyada qaar ay weli ka dhamaystirmin iyo dawladda federaalka waxaan rajaynaynaa hawlahaas 15 August la qabsaday bisha dhawaan bilaabanaysa inaysan ka daba marin oo sidii loo qabtay iyo ballantii inay sidaa u fusho ayaan ilaahna ka baryayaa mas'uuliyiintii halka ku ballamay ee ku heshiiyeen inay arinta ka dhabeeyaan oo hirgeliyaan iyo diile weyn baa Soomaaliya gashay markii odayaashu isku tageen rajo fiican inay ka soo baxdo ay halka ka muujiyeen taas waa adkeynaya waxaana leeyahay hawsha ayada ah anoo ku hadlaya magaca golaha hogaaminta habargidir waxa laga dhabeeyo waana hubaa in laga dhabeeyo shaki igagama jiri laakiin aan codkaan rabaa inaan ku kaalmeeyo waxaan kaloo rabaa inaan erayadii aan hore ugu jiray shirarkii jiraadii aan hore u qabtay ee ahaa doorashadu inaysan waqtigeeda dhaafin sidii lagu heshiiyay doorasho aan waqtigeeda dhaafin in loo hawl galo muddadeeda inaysan dhaafin oo lagu ballamay ayaan ku soo celinayaa mar kale waayo waa barnaamij taxana ayuu ahaa oo horey madaxweynayaashii hore isku dhiibeen madaxweynaha hadda joogana ka rajeynayo inuu hawsha ayada ah maalinteeda la qabto xaq buu u leeyahay waa soo sharaxi karaa mar kale laakiin inay muddadaasi noo ahaato muddo cayiman oo lagu tala galo 4 sano mar inay dhacdo haddii wax laga bedelayo ama la dheereynayo ay gaabsi noqoto 4 sano in la sharciyeeyo oo dastuurka lagu daro waxba kama qabno laakiin waa in mar walba waqtiga lagu ballamay aysan dhaafin oo loo hawl galaa bilowga marka doorashadu ay dhacdo madaxweyne la doorto iyo asna dawladdiisa doorto fulinta guddiga wasaaradda uu doorto Prime Minister in marka hawlgalku bilowdo si aan hadhowto
marka xilligu soo dhawaado la isku qabsan muddadii waa dheeraynayna iyo waa gaabinayna arinta ayadaan soo jeedinayna waxa weeye inaysan doorashadu waqtigeeda doorasho aan waqtigeeda dhaafin in lagu dadaalo in ay qabsoonto mar labaad ayaan waxa barnaamijkan igu dhaliyay u soo qaatay guddiga farsamada maantay laba shir oo hore ayaan rabaa ayaa dhacay beesha xawaadle iyo beesha Habargidir labadii kulan wuxuu dhalay in guddi farsamo la sameeyo oo maantay hawshiisi bilaabay marka guddiga farsamo bilowdo hawshii inay bilaabanaysaa muuqanaysa marka taas way imdaan leeyahay guddiga farsamo qolooyinkii sameeyay dawlad goboleedyada sameeyeen oo ku mahadsan yihiin kuwa aan sameeyna inay ku dhaqsadaan oo hawshii waa 15 August waa nasaaran tahay hawsha ayada lagu la hirgeliyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.